salaamullaahi calaykum soo dhawaada saaxiibadeena wanaagsan waxay la wada socotaan barnaamijyadan halkan ku soo gudbinaa inaan mar walba ka eegno waxyaabaha ay bulshadu ugu baahida badan tahay maantana barnaamijkeena aan soo diyaarinay waxa uu yahay sida loo ogaado qofka sida dhabta ah kuwa jecel haddii aanad aqoon u lahayn qofka sida dhabta ah kuwa jecel fiidiyoogan dhamayso waxa aan hubaa waxyaabo badan inuu ka anfici doono saaxiibe kuma ballan qaadi karo haddii aad calaamadahan qayb ka mid ah aragto inuu qof si dhaba ku jecel yahay balse waxaan ku ballan qaadi karaa 70% inay sax tahay xogtan aan ku soo gudbinaya haddii aad aragto dhammaan calaamadahan aan ku sheegi doono qodobka koobaad mar walba oo xurguftin dhex timaado wuxuu isku dayaa qofkaasi inuu si dhab yar ku xalliyo ama halka ugu wanaagsan ee uu ku xallin karo ay noqoto si yar oo fudud qodobka labaad mar walba wuxuu jecel yahay inuu ku arko qofka sida dhabta ah ku jecel marnaba ma jecla inuu ku arki waayo sababtoo ah waxa uu tabayaa in ay wax badan ka maqan yihiin qodobka saddexaad waa mid marka uu ku arko jecel waqti badan inaad wada qaadataan qofkani waxa laga yaabaa haddii aad wada kulantaan inuu waqtigiisu oo dhan ku hori karo una ka rajaynaya adiguna sidaas la mid ah inaad waqtiga qayb ka mid ah siiso waxaan u jecel yahay sheekadiinu inay aad u daba dheeraato qodobka afraad waa qof isku daya inuu wax ku taro wax ku taritaanku kaliya ma aha inuu qofku lacag ku siiyo ama uu ku siiyo waxaad ku shaqo tagto ama uu shaqo ku siiyo wax taritaanku meel walba uu gali karaa qofka oo tactic ahaan ku caawiya maskax ahaan ku koriya waxyaabo ka dhiman kugu dara taasiba waxa la yiraahdaa caawin ama uu inuu wax ku taro qofkaasi wayna adag tahay qofka aad ku jecel inuu wax ku tari waayo ama arinku haysto uu kugu daawado waxa uu isku dayaa in uu xalliyo waxyaabaha adiga ku haysta iyo waxyaabaha isaga haystaba qodobka shanaad saaxiibada aad leedahay aad ayuu qadariyaa haddii aad saaxiibo badan leedahay isna saaxiibadaas oo dhan waa saaxiibadiis sida aad u qadariso ayuu qadariyaa qiimaha agtaada kale yihiin ayuu kale yihiin xataa haddii ay isaga xurguf dhex taalo isagu uma eegayo qofkani waa qofkii xurgufteeni dhex taalay ee waxa uu ka eegayaa inay adiga saaxiibo ku yihiin ay ku xiriirinayaan qodobka lixaad marka aad kulantaan kuma weydiiyo su'aalo lagaga jawaabi karo ha amba maya tusaale haddii uu su'aal ku weydiinayo oo aad sidato buug ku qoran yahay jacayl ama waxyaabo la mid ah kuma weydiinayo buugga cidda qortay iyo buugga magaciisa ee waxa uu ku weydiinayaa qisooyinka ama dhacdooyinka ku qoran buugga si aad faahfaahin dheer uga bixiso mana jecla inuu su'aalaha ku soo kookoobo ee waxa uu jecel yahay su'aalaha uu weydiinayaa inay noqdaan kuwa aad iyo aad runtii jawaabahoodu u dhaadheer yihiin qodobka toddobaad waxa uu jecel yahay familigiisa qayb ka mid ah inuu ka baro ama uu ku baro dhamaantood qofka rajo iyo dan iyo mustaqbalka leeyahay mar walba waxa uu jecel yahay in lagu la ogaado xiriirkiisa sida aawadeed qof jeclaysta familiga qayb ka mid ah inuu ku baro ama uu dhamaantood ku baro qodobka sideedaad waa qof weligii hadaladiisu aanay iskhilaafin nacam runta mar walba ku sheega qofka ay hadaladiisu iskhilaafaan badanaa waa qof beenana kugu soo xirigelinaya laakiin qofkani lagama yaabo in hadaladiisu iskhilaafaan si wanaagsan ayuu wax walba u sheegayaa qofka runta sheegayaana lagama yaabo in hadaladiisu iskhilaafaan waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu ku anfacay intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan igaga tagayaa sidaas iyo nabadgeliyo